gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Barawe Dr. Liibaan Abuukar Cusmaan ayaa shir gudoomiyay kalfadhigii afaraad kulankiisii afaraad ee golaha deegaanka degmada Barawe kaasoo ajandihiisu ahaa ansixinta hadal qoraalka fadhigii saddexaad iyo soo xiridda kalfadhiga afaraad ee golaha deegaanka degmada Barawe. gudoomiyaha golaha deegaanka ayaa ku booriyay xubnaha golaha deegaanka inay sii laablaabaan dadaalada horumarineed ay u horseedaan degmada sidoo kale wuxuu guddiga joogtada xasuusiyay ayagana inay u diyaar garoobaan hawlahooda shaqo iyo qorshayaasha shaqo ee kalfadhiga shanaad ee furmi doona 20 bisha 2 2023.